Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Halkan nagala socotaan waa Macruuf Somali Media. Walaalayaal kusoo dhawaada mar kaleeto taariikh kaleeto aan idinkaga heyno gacanka Farisiga. Gacanka Farisiga waxa uu dhacaa dalka Iiraan, waxa uuna kala qeybiyaa dalalka Iiraan iyo dalalka Carabeed. Baaxadda waxaa lagu qiyaasaa 233,000 kiiloomitir square. Gacanka waxa uu ku darsamaa badda Carabeed, ballaciisu waa 370 kiiloomitir square, halka ugu ballac yarna oo loo yaqaano Marinka Hormuz ballaceedu waa 55 kiiloomitir. Marka la eego dhanka moolka, dhirirka biyaha waxay gaaraysaa 90 kiiloomitir square. Gacanka waxaa wareegsan 8 dal ugu horeysa Iiraan, Sacuudiga iyo Kuwait, Ciraaq, Baxrayn, Qatar, Cumaan iyo Imaaraadka. Ayaamahan dambe waxaa ka jira isqabqabsi Mareykanka iyo Iiraan kaga dhexeeya. Mareykanka ayaa u aqoonsaday meeshaas meel istiraatiiji ah. Iiraan ayaa ku hanjabtay in ay iska qaban doonto Mareykanka iyo xulafadiisa, ayna u soo dhowaan karin meeshaasi. Halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. Walaalayaal ha hilmaamina subscribe inaad saartaan, commentigana hoos aad noogu reebtaan.